Casharkani wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo bank reconciliation-ka. Waxaynu ku eegi doonaa example-ka Mary Kay. Sidaynu aragno, Mary Kay waxay diyaarinaysaa cash book-geega bishii April 2010. Halkan waxaynu ku haysanaa cash book. Dhinaca dhibitka waxa inoo yaala wuxuu inoo badinayaa cash book-geena, waxaana ku jira lacagihii la helay oo dhan. Dhinaca kreditka waxa inoo yaala lacagii la bixiyey oo ay jeegagii kala duwanaa ay nooga muuqdaan. Waxaad ogaataa in dhammaadkii April baalansigii ugu dambeeyey uu ahaa $20,595. Aynu ku bilowno ka ugu horeeya. Mary Kay waxay bank statement ka heshay bangiga la yiraahdo High Street Bank 26 April. Warqadda bank statement-ku waxay inoo sheegaysaa wixii ina soo galay iyo wixii inaga baxay bishii April 2010. Haddaba waxaynu arkaynaa credit balance-ga inoo yaala banka dhammaadkii bisha oo ah $955. Taasi waxay noo caddaynaysaa in ay lacagi inoo taalo bank. Sida bank statement-keena aynu ku arkayno, waxaad ogaataa in aanay isku mid ahayn sida aynu ku soo aragnay balance-keenii cash book-ga. Haddaba waa in aynu reconciling ku samayno cash book-ga iyo bank statement-ka si aynu u ogaano faraqa u dhexeeya una saxno. Waxaa layna weydiiyey Mary Kay bank reconciliation-kii bishii April. Sax. Haddaba aynu bilowno. Si aynu reconciliation u samayno, waxaynu raaci doonaa 3 step. Step 1 waa in aynu reconciliation ku samaynaa cash book-geena faraqa u dhexeeya bank statement-ka. Haddaba aynu reconcile ku samayno cash book-geena. Waxa koowaad ee aynu u baahannahay waa in reconcile ku samayno opening balance-geenii. Waxaynu arkaynaa in cash book-gu ina tusayo opening balance ah $14,500. Tig aynu saari doono haddii ay isku mid noqdaan balance-kii lagu furay bank statement-ka. Waa isku mid. Opening balance-ga kreditka yaala waa $14,500. Markaa tig ayaynu saari doonaa labadaba. Waxaynu ku noqon cash book-geenii. 3 April waxaa laynagu siiyey jeeg lambarkiisu yahay 345,650 oo inagu jira cash book-geena. Miyuu galay bank statement-keenana? Waxaynu ku arkaynaa column-ka paid in check number 345,650. Tig ayaynu saari doonaa markaa. Markaynu tig garayno bank statement-keena, sidoo kale waxaynu saari doonaa tig cash book-geena. Waa sax. Way isku keen match gareeyeen labadaasi. 5 April waxaa la inagu siiyey jeeg lambarkiisu yahay 95464. $1,200 ayaa book-geena soo galay. Bank statement-keenana miyuu ka muuqdaa? Waa sax. Way ku jirtaa column-ka paid in $1,200. Jeega lambarkiisu yahay 95464. Tig ayaynu saari doonaa markaa. Cash book-gana sidoo kale. Jeega lambarkiisu yahay 741 oo ay ku qoran tahay $1,100. Aynu ka eegno bank statement-keenana. Way ku jirtaa xagga hoose. Jeeg lambar 741 $1,100. Dhinaca pay-in-ka waynu tig garayn doonaa sidoo kale cash book-geenana. 29 April waxaynu soo galay jeeg lambarkiisu yahay 6532 oo 3,000 ah. Bank statement-keenana miyuu inooga muuqdaa? May, kuma aragno. Waxaa lagama maarmaan ah in haddii jeeg ku jiro cash book-ga aanu ku jirin bank statement-ka, waxaa loo aqoonsanayaa outstanding checks.
jeegii aynu helnay laakiin weli aan gaadhin baanka waxaa loo aqoonsanayaa outstanding. Markaa waynu highlight garaynaynaa jeegga waana la reconcile garayn doonaa. Haddii aynu ku noqono bank statementkeenna wax kasta laguma bixin cash buugga. Waxaynu arkaynaa wax lagu bixiyey bank statementka 3,500 oo la xidhiidha Bakis transfer. Bankigu wuxuu sameeyey credit transfer. Waa lacag laynoo keenay oo aan inagu jirin cash buuggeena laakiin baankeena laynagu transfer gareeyey. Waa in lagu adjust gareeyo cash buuggeena waayo maalintii kaashka la bixiyey ama la helay inaguma jirto cash buuggeena. Markaa waxaynu adjustment ku samayn doonaa cash buuggeena oo aynu ku dari doonaa 3,500 cash buuggeena. Waxaynu dhammaynay dhibitka cash buuggeena. Imikana haynu u nimaadno dhinaca creditka ee cash buuggeena. 1 April jeegga nambarkiisu yahay 1437 $450 ayaa laga saaray cash buugga. Ma laga saaray sidoo kale bank statementkeena? Haa, waa ta ugu horeysa ee laga saaray. Dib aynu ugu noqono tigna aynu saarno jeeg 1438 $600 miyaa laga saaray isku maalin? Miyaynu ku aragnaa? Haa, waa laga saaray. Aynu tig garayno bank statementka. Sidoo kalena aynu tig saarno cash buuggeena. Waxaynu samaynaynaa waa isku match garayn. Jeeg 1439 $750. Taasna ma laga saaray baanka? Haa, waa laga saaray $750. Laakiin ka taxadir labada figar ee isku midka ah. Xusuusnowna imika inagu waxayn doonaynay waa jeeg ayuu haa. Maxaa inoo yaala cash buuggeena? Jeeg 1440 $150 miyuu ku jiraa? Kuma jiro. Haddaba waxaynu mar kale u baahannahay in aynu reconcile samayno. Taasina waxay noqonaysaa unpresented checks. Markaa waa la reconcile garaynayaa. Waxaynu u baahannahay in aynu bank statementkana gelino waayo cash buugga baynu ku arkaynaa weli. Aynu u gudubno jeeg 1441 $250 in ay ku jiraan bank statementka. Haa, waynu ku aragnaa jeeg 1441 $250 bank statementka. Cash buuggana waa in aynu tig saarnaa sida oo kale. Jeeg 1442 $350 miyaa laga saaray baanka? Haa, waa laga saaray. Tigtana aynu saarno. Sidoo kalena aynu tig garayno cash buugga. Jeeg 1443 $395 miyaa laga saaray bank statementka? May lagama saarin. Markaa taas waa la reconcile garayn doonaa. Sidii kii hore ee ahaa unpresented checks. Jeeg inoo qoran oo aan weli laga saarin baanka. Jeeg 1444 $165 miyay ku jirtaa bank statementkeena? May. Markaa waa la highlight garaynayaa sidoo kale. Miyuu jiraa unpresented check kale? Jeeg 1445 $245. May, kaasi isaguna kuma jiro. Sidoo kalena kaas waynu highlight garayn doonaa. Wuxuunu noqon doonaa unpresented checks sidoo kale. Imika cash buugga waxaynu ku aragnaa in aynu caddaynay wax kasta oo inooga baahnaa reconcile. Aynu eegno bank statementkana. Waxaynu ku aragnaa waxyaalo laga saaray sida standing orders, direct debit iyo bank charge. Kuwaas oo aan weli la adjustment garayn
cashbookana aan ku jirin weli. Wax kasta oo halkan aynu ku highlight garaynay greenka waa wax inooga baahan in aynu cashbooka ku adjustment garayno. Waa in aynu kordhino 3,500 sidoo kale ka jarno 3 kalena ee laga bixiyey bank statementka oo aan weli laga saarin cashbooka. Step 1kii waynu samaynay. Step 2ga waxaynu u baahannahay in aynu gelino wixii bank statementka ku jira ee aan ku jirin cashbooka. Si aynu u gelino cashbookeena waxaynu u baahannahay in aynu furanno adjustment cashbook ledger account. Haddaba aynu furanno ledger account fiican oo weyn. Waxaynu u bixinaynaa cashbook. Tani waa bank statement markaa waxay tegaysaa statement of financial position ama balance sheetka. Waxaynu ku bilaabi doonaa balansigeenii hore kaas oo aan weli la adjust garayn. Waxaynu dhigi doonaa debit balancega $20,590 unadjusted balance. Markaa waxaynu ku bilaabi doonaa unadjusted balance. Book forward cashbook $20,590. Imika waxaynu samayn doonaa in wixii highlight garaysan ee bank statementka ku jira gelino cashbooka. Haddaba marka hore dhinaca paid inka waxa inoo yaala $3,500. Waxaynu saari doonaa tig waayo waxaynu geynaynaa cashbooka. Wixii dhinaca paid inka soo galay waxaa la geynayaa dhinaca debitka ee cashbooka. Haddaba taasi waa backis transaction 3,500 oo inoo kordhinaysa assetkeenii cashbooka. Imikana waxaynu qaban doonaa waxaynu mar israacin doonaa dhinaca paid outka inaga baxay standing order oo ah $750, direct debit oo ah $750 iyo bank charge oo ah $500. Haddaba wixii ka baxay banka waxay gelayaan dhinaca creditka ee cashbooka. Standing order $750, direct debit $750 iyo bank charge oo ah $500. Imika bank statementkeenii wax kastoo adjustment inooga baahnaa way wada tikaraysan yihiin. Waxaynu balance garayn doonaa cashbookeena. Haddaba waxaynu ka bilaabi doonaa $23,595 oo dhinaca debitka ah waayo dhinaca debitku wuu ka badan yahay sida inoo cad. Markaa adjusted balance carry forward $22,595. Imika waxaynu dhammaynay step 2 adjustmentigii bank statementkeena oo dhan waxaynu keenay cashbookeenii. Imika waad aragtaa in uu isbedelay balansigii cashbookeenu laakiin weli isku mid ma aha balansiga bank statementkeena. Markaa imika waxaynu samayn doonaa in aynu isku mid ka dhigno adjustment aynu ku samayno wixii yaala cashbookeena ee aan oolin bank statementkeena. Markaynu taa samaynaynana waxaa loo yaqaanaa bank reconciliation. Taasina waa step 3. Haddaba bank reconciliationkii April 2010 waxaynu ku bilownay balanskii bank statementkeena. Ma xusuusataa balanskii bank statementkeena wuxuu ahaa closing balancekeenii $19,550. markaa $19,550 waxaynu ku bilaabi doonaa ugu horeyn. Imika waxaynu doonaynaa in aynu ka jarno jeegagii aan la gudbin. Waa jeegag la qoray oo aan weli laga qaadan banka. Markii laga qaatana way yaraan doontaa bank balance keenu
waxaynu hore u soo aragnay jeekis aan weli la gudbin oo aynu ku soo haylayd garaynay kaash buuggeena. Waxaynu haysanaa 4 jeeg oo aan loo gudbin bankiga oo kala ah $150, $395, $165 iyo $245. Waynu tig garayn doonaa waayo ban reconciliation ayaynu ku samaynaynaa. Haddaba aynu u gudbino jeekiska. Waxaynu haynaa jeega lambarkiisu yahay 1440 oo $150 ayaynu u gudbin doonaa. Waxaynu haynaa jeega lambarkiisu yahay 1443 oo ah $395 ayaynu u gudbin doonaa. Waxaynu haynaa jeeg 1444 oo $65 ah ayaynu u gudbin doonaa banka. Waxa kaloo aynu haynaa jeeg 1445 oo $245 ah, kuwaas oo loo gudbin doona bisha ku xigta. Haddaba waxaynu ka dhigi doonaa in jeekiskaas oo dhammi banka ka baxeen si aynu u samayno reconciliation. Iminka waxaynu doonaynaa in aynu ku darno wixii outstanding jeekiska ahaa. Outstanding jeekiskeena waxaynu dib uga eegi doonaa kaash buuggeena. Waxaynu haylayd garaynay jeeg 6532 $3,000 kaas oo aynu hayno laakiin weli aan loo gudbin bank. Jeeg 6532 oo ah $3,000 wuxuu kordhin doonaa baankeena. Iminka waxa inoo soo baxday in aynu dhammaan ban statementkeena iyo kaash buuggeenaba aynu soo wada tig garaynay. Markaa waxa inoo harsan in aynu kolomka totalkiisa soo saarno si aynu ugu balance garayno adjustmentigii lagu soo sameeyey kaash buugga. Haddaba aynu soo qaadano 19,550 laga jaray 150 laga jaray 395 laga jaray 165 laga jaray 245 oo loo geeyey jeega 3,000 oo la mid ah 22,595. Miyaad rumaysan kartaa in ay isku mid yihiin closing balance adjustment kaash buuggii hore aynu u soo samaynay? Wow, waa isku mid. Waxaynu waxaas oo dhan u soo qabanaynay in aynu ku ogaano kaash buuggeena, laguna jeeg gareeyo balanska kaash buuggu in uu la mid yahay ka ban statementka. Haddaba taasi waa habka ban reconciliationka loo sameeyo.